ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa la soo tabiyay inay xadgudubyo waaweyn ka geysteen gobolka Tigreega ee uu dagaalku ka socdo. Inkastoo ay dowladda Soomaaliya hore u beenisay inay askar geysay gobolkaasi oo ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya. Militariga Soomaaliya oo garabsanaya kuwa dowladda Eritrea ayaa lagu eedeeyay inay xasuuq ka geysteen deegaano ka tirsan Tigreega bilihii ugu horeeyay ee ka dambeeyay marka uu dagaalku bilowday. Sida laga soo xigtay dad goobjoogayaal ah oo u wareystay wargeyska lagu magacaabo The Globe and Mail ee ka soo baxa waddanka Canada. Marqaatiyaasha uu wargeyska la hadlay waxaa ka mid ah nin 52 sano jir ah oo magaciisa lagu soo koobay Gabre Sadik, kaasoo sheegay in uu degan yahay xaafadda Zambangandena oo ku taala waqooyi bari ee gobolka Tigreega. Waxa uu yiri meydadka wadaadiimeedyo oo madaxa uu ka go'an yahay ayaan ku arkay wadooyinka xaafadeeda bishii December ee 2020, isagoo intaasi ku daray ciidamada Soomaalida oo qabsaday xaafadeeda ayaa si gaar ah u bartilmaameedsaday kaniisadaha, waxayna laayeen baadariyaasha way gowraceen. ciidanka Soomaalida iyo Eritrea ayaa xaafadaasi ku sugnaa ilaa dabayaaqadii bishii Febraayo, sida uu sheegay ninkan ka mid ka ah dadka deegaanka. dadka kale ee xogta laga soo xigtay waxaa ka mid ah beeraley 32 sano jir ah oo la yiraahdo Berket, kuna sugan xaafadda Mayharmas ee gobolka Tigreega, kaasoo yiri ciidanka Eritrea su'aalo ayay ku weydiinayaan ka hor inta aysan ku dilin, balse kuwa Soomaalida ah ma sameeyaan sidaas. waxa uu intaasi ku daray in baadariyaasha la dilay uu ka mid ahaa nin ay diris ahaayeen 76 sano jirna ahaa. hase yeeshee dowladaha Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia ayaa beeniyay in ay isku xulufaysteen dagaalka Tigreega oo hadda socda muddo ka badan hal sano. ma aha markii ugu horeysay ee ay soo baxaan wararka ku saabsan in ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ay ka qayb qaateen dagaalka gobolka Tigreega. bartamihii sanadkii 2022 warbixin ka soo baxday hay'adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in ciidamo ka socda Soomaaliya oo tababar ku qaadanaya saldhig militari oo ku yaala Eritrea in ay ku biireen dagaalka Tigreega oo khasaaro badan dhaliyay. hadalhaynta ku saabsan ciidamada Soomaalida ayaa ahayd mid sii xoogaysanaysa oo ka jirtay gudaha Soomaaliya, halka ay xukuumadda uu hogaamiyo Maxamed Xuseen Rooble ay ku adkeysanaysa inaysan ciidankooda tagin waqooyiga Itoobiya. dhinaca kale, bishii Juun ee sanadkii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ka dhacay mudaharaad ay sameeyeen qaar ka mid ah waalidiin dhalay askar la sheegay in tababar militari loogu diray dalka Eritrea balse ay ka dagaalameen Itoobiya. dadka dibadbaxaya ayay dowladda ka dalbanayeen in ay dalka dib loogu soo celiyo askartaasi. waalidiinta ayaa doonayay inay ogaadaan halka ay carruurtooda ku sugan yihiin kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in ciidan Soomaali ah loo diray dagaalka gobolka Tigreega. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa xiligaasi magaalada Muqdisho ku magacaabay guddi soo baara cabashada ay waalidiinta ka qabaan ubadkooda ka maqan. ilaa iyo haddana wax war ah kama aanay soo bixin guddigaasi.